السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkani waa Sky 24 TV. barnaamijkeena waxaan ku soo qaadan doonaa musharaxa golaha wakiilada Soomaaliland Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto iyo waxqabadkiisii intuu ahaa gudoomiyaha ururka Soldier. muddadii uu hayay xilka ayaa gudoomiyuhu waxa uu hirgeliyay waxqabad la taaban karo haddii ay noqoto kor u qaadida aqoonta saxafiyiinta Soomaaliland iyo raadinta xuquuqda suxufiyiinta. haddaba gudoomiyuhu oo ah musharax haatan u taagan golaha wakiilada Soomaaliland oo ku suntan sharci dejin ayaa ah shakhsi aad uga adag ilaalinta shuruucda dalka. haddaba halkan waxaan ku soo bandhigi doonaa waxqabadkii Soomaaliland runtii waxay aad ugu farxeen xukuumadan cusub kulankii ugu horeeyay ay maamul wanaaga kaga hadlaysay si ay iskula jaan qaadi lahayd dhammaan mas'uuliyiinta cusbaaya runtii la magacaabay oo madaxweynuhu hormoodka u ahaa wasiiradu ku jireen aqoon-yahanadu ku jireen waxa ka soo wareegtaan filaya 3 sano rajadii maanta dadka gashay waxay runtii in la helo nidaam wanaagsan oo isla xisaabtamaya oo isweydiinaya hase waxa muuqata 3 sano kadib in aan wali kulankii oo kale la qaban. marka haddii la bilaabo oo falaad daba furan ay noqoto runtii qorshayaasha qaranku waxay noqonayaan kuwa hal bacaad lagu lisay. waa in la helaa 6 bilood been mar la kulmo oo la isweydiiyo waa in la helaa sanadkii. waxaad arkaysaa sida aanu ognahay in dhammaan hay'adaha kala duwan ee qaranku aan wax isla xisaabtan ka jirin. taana waxa ugu wacan waa qorshaha guud ee qaranka. haddii qorshaha guud ee qaranka lagu dhaqmo runtii wax badan baa dalkan u hagaagi lahaa, wax badan baa ka suurtagali lahaa. wax la weydiiyay aanay jirin maxkamad la geeyay aanay jirin runtii xorriyadoodii loo soo celiyay. marka waxaan u aragnaa runtii iska xadhiga dadka la iska xidhay ama wariyaasha la iska xidhayo iyo iska soo deynta la iska soo deynaya runtii labaduba inay dalkan cawaaqib xumo u keenayaan. haddii qofka dembi lagu hayo runtii in waxa wanaagsan sifo sharci marka hore loo maro isla markaana sifo sharci lagu sii daayo. inkastoo lagu mahadnaqayno xukuumadda Soomaaliland runtii inta badan in arrimaha saxaafadda ay xal ka gaadho haddii xukun ku dhaco iyo intaan xukun ku dhicinba. haddana waxaan u aragnaa soo noqoshada xadhiga suxufiyiinta la iska xidhayo iyadoo sharci loo marin, haddana la iska soo deyn iyadoo sharci loo marin, isla markaana hay'adihii ku shaqada lahaa aanay xidhin runtii inay nasiib darro dalkan mar walba magac xumo u keenaysa ay tahay bulshada caalamkana runtii sumcad xumo iyo karaamo dhac maalin walba marka suxufiyiin la iska xidho runtii u furaysa baab ah inta badan ka aanu ka dagaalano Soldier oo ah inaan magac xumo iyo runtii tacadiye ka dhanaha saxaafadda Soomaaliland aan lagu arag sida dastuurka Soomaaliland dhigayo sida xeerka saxaafadda. ururka Soldier waxa xukuumadda ugu baaqaya in ay ilaaliso joojiso isla markaana meesha ka saarto falalka ka dhanka ah shuruucda ee lagu caburinayo warbaahinta wixii gaf ah ee dhacana loo maro nidaam sharci. in xukuumaddu dargeliso ansixinta xeerka cusub ee warbaahinta ee ay gacanta ku hayso. in aan suxufi ama si hay'ad warbaahineed laga hor istaagin howlgal saxaafadeed iyo helista xog ama war muhiim u ah bulshada. in la xoojiyo hanaanka wada shaqeyneed ee ururada bulshada, mulkiilayaasha saxaafadda iyo suxufiyiinta. in la kala xadeeyo mulkiilayaasha iyo suxufiyiinta oo ay dawladdu isha ku hayso gabadfalada ku dhaca wariyaasha ee ka soo gaadha mulkiilayaasha. waxa uu ururku ugu baaqayaa mihnadayaasha saxaafadda in ay ilaaliyaan shuruucda warbaahinta u taala, bartaanna shuruucda hagta mihnada warbaahinta iyo in ay iska jiraan wax kasta oo aan sharciga waafaqsanayn oo u soo jiidi kara dhibaato. inay ka musharaxu waxa uu aaminsan yahay in golaha wakiiladu yahay goobta halbowlaha u ah sharciga dalka maadaama uu golahaas yahay ka laga soxo dawladda lagana hogaamiyo. taasina waa sababta ku dhalisay inuu go'aansado inuu noqdo musharax u taagan golaha sharci dejinta. haddaba daawadayaal isagoo arrintaas ka hadlaya xafladda shaacinta musharaxnimadiisa waxa uu yidhi sida tan: waxaanu runtii si weyn ugu mahadnaqaynaa gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi oo noo suurtageliyay runtii madasha maanta sida qurxoon aan ugu caleema saaraysaan inaynu isku soo hor istaagno. gudoomiye Cabdiraxmaan waxay si hagar la'aana si shuruud la'aana runtii noogu suurtageliyeen maanta inaanu madashan nimaadno. waxaan u sharaxanahay golaha wakiilada Soomaaliland waayo aragnimo aan u leeyahay muddo dheer baan ka soo shaqaynaya runtii mas'uuliyadda iyo waajibaadkayga ka horeeya nin runtii si weyn u garanaya baan ahay. waxaan qabaa maanta mushkiladaha waddankeena ka jira maamul xumada iyo nidaam xumada ka jirta runtii in halkaa lagaga saari karo ee laga sixi karaa ay isaga tahay.
golaha wakiiladu waa dhaabadda koowaad ee xukuumadda runtii loo dhigo ee saxda waxaan qabaa runtii golaha wakiilada haddii mudanayaal sida mudanayaal badan oo halkan fadhiya oo golaha ku jiro runtii magac iyo maamuusba kule ay golaha yimaadaan in ay samayn doonaan oo ay dalka gaarsiin doonaan runtii horumarka aynu ka